dagaal xoogan ayaa ka socda meel u dhow koontaroolka magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyadoo rasaas culus laga maqlayo aagaga ay ku sugan yihiin ciidamada isku hor fadhiyay. Wararka laga helayo goobta ayaa sheegaya in iska horimaadku uu bilowday kadib markii ay isku dhaceen ciidamada isku hor fadhiyay inta u dhaxaysa magaalada Boosaaso iyo deegaanka Laag. Goobjoogayaal ayaa sheegay ay labada dhinac isku adeegsadeen hub culus iyo mid fudud, taas oo keentay in dhaqdhaqaaqii gaadiidka iyo dadka ee wadadaasi hakad galo. Xogaha hordhaca ah waxa ay tilmaamayaan in dagaalku u dhaxeeyo ciidamada BSF iyo ciidamada Puntland. Ilaa iyo haatan ma jirto war rasmi ah oo ka soo baxa labada dhinac oo ku saabsan sababta rasmiga ah dagaalka ama khasaaraha ka dhashay. Wararka deegaanka ayaa sidoo kale sheegaya in qaar ka mid ah shacabka ku nool agagaarka goobta dagaalku ka socdo ayaa bilaabay in ay ka fogaadaan aagaga iyagoo ka cabsi qaba in dagaalku sii fido. Ganacsiga iyo isku socodka dadka ee wadada xiriirisa Boosaaso iyo deegaanka kale ee gobolka ayaa la sheegayaa in ay si weyn u saameysay xaaladda amni. Dagaalka ayaa ku soo beegmaya xilli gobolka Bari ay ka jireen xiisado amni iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo maalmihii lasoo dhaafay laga dareemayay deegaanada ku teedsan Boosaaso iyo Laag. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin waxa sababay iska horimaadka maanta.